gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo wafdi uu hogaaminaya oo soo gaadhay magaalada burco galabnimadii shalay toole ayaa habeenkii xalay toole ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo lagu qabtay hotel kaafi ee magaalada burco munaasabadani oo ahayd mid hogaanka xisbiga wadani ugu mahadnaqayeen taageerayaasha xisbiga ee gobolka togdheer ee cudud iyo codba la berber istaagay doorashadii dhowaan ka qabsatay Soomaaliland waxaana ugu horeyntiiba munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer Mr. Doob qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka xubno ka mid ah taageerayaasha xisbiga iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer qaran ee xisbiga waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gobolka ugu ballaaran ee xisbigani uu ku tashado kuna soo talagalo maadaama aynu nahay gobolkan axsaabta qaranka aynu ku tartamay innagu aynu wanka fadhino waa ilaahay mahadii maanta inteena halkan fadhida rag baa isla sad baa idinka maqan hablaha isla sad baa idinka maqan laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaynu innagu ka wacannahay qolada maanta kursiga ku fadhida oo iyagu fartoodii eeday taageersanahay gudoomiyaheena cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi nimanka komishinka ee siidhi walayaasha dhammaan sida yihiin in laynaga bedelo soo tartanno dhiig cusub isu shubno diyaar mawtin waddankeenu badbaadina diyaar mawtin inaynu noolaano diyaar mawtin aynu waynu sii ogeyn laakiin gudoomiyuhu wuxuu siistay inuu nabadda ayuu siistay wuxuu leeyahay oo miisaaniyadda qaranka gobollada ay u siman yihiin oo qofka xanuunsanaya maskaxda ka buka loo sameeyo dhakhtar oo dadkii dhibooday la xanaaneeyo ilaa aynu gaadhno dowladnimadeenu soconno maynaa gaadhin gudoomiyahaaynu siiyey wuuna mahadsan yahay wixii xol ahaa iyo wixii xol waayey gudoomiyahaaynu siiyey marka iyo xogta waxay ahaayeen mahadnaq bay ahaan mahadnaq ugu dambeyntiina waxaa soo gunaanaday munaasabadani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan u soconnaa oo safarka iyagu ku saabsan yahay ama ujeeddada safarka iyagu tahay hal ujeeddo oo keliya halkaa ujeeddo waxa weeye inaannu idiin mahadnaqno oo aannu u mahadnaqno dhammaan shacbiga gobolka togdheer waxaannu idinku mahadnaqaynaa qof kasta waa u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa qof kasta qof baanu idinku mahadnaqaynaa waxaan idinku mahadnaqaynaa xaafad waxaan idinku mahadnaqaynaa tuulo waxaan idinku mahadnaqaynaa magaalo waxaannu idinku mahadnaqaynaa degmo waxaannu dhammaantiin baannu u mahadnaqaynaa qof kasta oo taageero ah oo xisbiga waddani cod siiyey meeshuu doonadaa ka joogo gobolka togdheer aad iyo aad baannu idinku mahadnaqaynaa khadar cabdirasaaq saleebaan muqbaahiyaha caalamiga bulsha TV burco.